saddex shay oo iskaga yaraa karna stress waalidiin haddaan ahna. Number 2 horta waa inaan ogaanaa xagoo nooga imaada stresska, maxaa noo keenooyo, maxaa dhib ahoo jiro, kadib waxaa la raadinayaa xalka. Number 2 waa in xanaaqeena aan ka darol garana. Marka adigoo cunugii la joogto kaa xanaajiya, carruurta kaa xanaajiya, ka tag meeshaas, galaas biyo qabow cab. haddii markaas biyo kuu dhawaan oona meeshan ka tagi karin, solution-ka kale aad samayn karta xaalad saddex mar aad neefsanaysaa. haddaa ka u baahatan waa samayn kartaa. neeftaada dhan kor u soo qaada, kadib aa isku celina, sanka tartiib ugu soo bixina. alla xanaaqo ka baabaa. Midda saddexaad, hooyooyin haddaan nahnay, stress-ku waxyaalaha nagu keena waxaa weeye wixii oo dhan, hooshii oo dhan, gurigii oo dhan, wax kasta dusha iska saarna. caawinaad weydiisto, carruurtiina caawinaad weydiisto, dadka kale caawinaad weydiisto. sida hadda ani camal oo ka hadlaya tarbiyada carruurta, caawinaad soo weydiisto. marka sababtoo ah inaad hooyo faraxsan noqotid waa shay muhiim, waayo carruurtaada future-kooda ayaa ku dhisan. hooyo xanaaqsan, haddaa uur leedahay cunug xanaaqsan aad dhalaysaa, dhibaato. haddii hadda ku ag joogaan adna xanaaqaada tirada ka batay, dhibaataa mustaqbalkooda u geysanaysaa. marka intaa mustaqbalkooda dhibaato u geysanaya, adna dhibaato leed, caawinaad weydiisto. teeda kale waxaan idiin hayaa